midowga Yurub waxa uu sii wadaa taageerada muhiimka ah ee uu siiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo adeegsanaya qaybo cusub oo qalab iyo agab ah oo ay bixisay xarunta nabadda Yurub ee EBF si loola dagaalamo al-shabaab xilli meesha ka baxay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS iyadoo lagu guda jiro xilliga kala guurka amniga Soomaaliya midowga Yurub wuxuu ka caawinayaa Soomaaliya inay si tartiib u qaadato lahaanshaha iyo mas'uuliyadda laamaha amniga dalka gaar ahaan agabkan ayaa isugu jira gawaari dagaal agab naf badbaadin ah mashaariic dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ah iyo qalab kale kuwaas oo kor u qaaday dhaqdhaqaaqa iyo awoodaha shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taageeradan waxay xoojin doontaa dadaalada nabadeed ee socda waxayna sii xoojinaysaa shaqada howlgalka tababarka midowga Yurub ee EUTM gaadiidkan ayaa bixin doona taageero muhiim ah oo dhanka saadka ah taas oo u sahlaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay gaaraan deegaanada fogfog iyo inay si hufan uga jawaabaan khataraha amniga qalabkan oo qayb ka ah taageerada midowga Yurub uu sheegay inuu bixin doono ayaa ilaa hadda gaarsiisan 110 milyan oo euro iyadoo loo marayo EBF midowga Yurub wuxuu xoojinayaa awoodaha howlgallada ciidanka qaranka Soomaaliyeed isagoo u diyaarinaya inay si buuxda ula wareegaan mas'uuliyadaha amniga maadaama ADMIS ay si tartiib ah dalka uga baxayso halkan waxaan la wareegaynaa maanta qalab muhiim u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qalab fara badan aan halkan kula wareegnay oo in yar oo kamid ah oo tusaale ah la soo bandhigay EU-da sida aad ogtihiin Soomaaliya wax badan ay garab siisay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin as we formally hand over these equipment financed by the EU for the federal government of Somalia. But more than that, I think this equipment is illustrative of the comprehensive support that the EU has been provided over the years to Somalia. qalab dheeri ah oo isugu jira saadka askarta ayaa sanadkan siyaabo kala duwan loogu wareejiyay ciidanka taasoo muujinaysa si ay midowga Yurub uga go'an tahay in Soomaaliya ay hesho mustaqbal nabadoon